waxaan ku leenahay beelaha garxajisna warkoodu waanu maqalay oo bayaankoodu waa dhageysanay barbaraad maraysaa iska noqo oo tolka go'aanka ay qaateen la qaado waayeelka garxajis ee sharafta badan ee sida fiican u hadlay waa sidii guurtinimada ahayd ee la yiqiin ee ku saleysnaanaysa dhaqanka Soomaalida aad iyo aad dawadayaal halkan aan ku sugannahay waa hoyga ay ka degan yihiin qaar ka mid ah ismada gobolada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ismada oo halkan maanta warbaahinta kula hadlay waxay ka hadleen arrimo ay ka mid yihiin mid ka mid ah salaadiinta Soomaaliland oo uu sheegay in Laascaanood tagi doono arrimo nabadeedna halkaas uu aadi doono ismku wuxuu suldaankaasi wuxuu xalay sheegay inay wada xiriireen qaar ka mid ah ismada dhaqanka SSC balse ismadu waxay sheegeen inaysan jirin cid la soo xiriiray ilaa iyo iminka sidoo kale ismadu waxay soo dhaweeyeen go'aanka ay soo saareen beelaha garxajis ee Soomaaliland oo ay sheegeen inay ku mahadsan yihiin inay ka dhiidhiyeen tacadiyada iyo dulmiga ay xukuumadda Soomaaliland ka geysanayso magaalada Laascaanood ismada dhaqanka ayaa sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin xabad joojin balse aysan muuqan waxay fariin u direen bulshada Soomaaliyeed in sidii xal loo heli lahaa ay ka shaqeeyaan sidoo kalena ay mar walba ismadu ku adkaysanayaan in ciidamada Soomaaliland laga kor qaado gudaha magaalada Laascaanood si loo helo xabad joojin rasmi ah bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo maalin sabti ah waxaanu joognaa magaalada Laascaanood xaruntii gobolka Sool halkan waxaa fadhiya salaadiintii gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn sidaad nooga barateenba annaga hadalkayagu ma badna laakiin marka wax jiraan maalintii horena waan sheegay inaanu hadallo waliba hadalkaanu maanta ku hadlaynaa uu noqdo kii ugu dambeeyay waa waajib weey xalayto waxaa miidiyaha la geliyey nin runtii anigu aanan garanayn laakiin yidhi suldaan baan ahay laakiin uu ag fadhiyey suldaanka guud suldaan daa'uud oo uu yidhi wafti baanu nahay dhaqana oo erga ah oo Laascaanood ku socota oo garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo garaadada kaleba ay noo yeedheen warnimayow arrinkaasi waxa weeye ninkii maamaahay wuxuu yidhi geel waana hori jirnay waana hayn jirnay war erga waa naqaanaa waana naloo geli jiray waanu geli jirnay erga labay ku timaadaa erga iskeed u soo dhaqaaqday marka wax dhacdo oo cidna wax weydiin oo meesha wax ka dhacay soo fadhiisata iyo ergo intay soo hadasho loo diyaar garoobo waa mi subxaanallah weey labada erga midna anagu ma hayno erga waxaanu haynaa war sheegaysa aan jirin oo ilaa Muuse gaarsiisay oo aan ka hadalnay war waxaanu maanta cadaynaynaa inaan anagu cidna u yeedhin waxaanu cadaynaynaa inaan cidina la soo hadlin waxaanu cadaynaynaa cidna la soo xidhiidhay midna ayna jirin suldaan daawud waxaan leeyahay agtaadu fadhiyay ninka hadlayay inay suldaanka Ayuub baan ahay anigu Ayuub waan aqaanaayo suldaan Uwaas Axmed baan aqaanaa mar haddii suldaan daawud agtaada uu fadhiyo waftigaagana uu ka mid yahay oo uu leeyahay suldaanka arrinkaas wax ka og oo garaadadii iyo waxa weeye uu la soo xidhiidhay waad ogtahay suldaan daawud labadeenu maalintii Ilaahay u naxariistay aabaha dhintay ayaan ku tacsideynayay baa telefoonka isugu dambeysay dhowr jeerna xafladeen isugu nin ilamaad soo hadleen garaadadan gobolada Sool iyo Sanaag lama soo hadleen mar hadday sidaa tahay suldaan waxaan ku leenahay beelaha garxajisna warkoodu waanu maqalay oo bayaankoodu waa dhageysanay barbaraad maraysaa iska noqo oo tolka go'aanka ay qaateen la qaado oo iska noqo annagu waxa weeye suldaan lama aan soo hadlin kulama aan soo hadlin ummadana waxaan u sheegaynaa mar haddii hadalku soo noqnoqday war hal la ogaado waray annagu cidna umaana yeelin cidna la soo hadashay ma jirto ummadda islaamka waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa walaalaha waqooyiga u sheegaynaa in ergadan soo noqnoqonaysa ee lagu been abuuranaya inaanay jirin war ma jirto war dhaqanku saama ahaan jirin war dhaqanku labada qodob buu ku imaan jiray erga waxa weeye annagu marka wax dhacaan toos baan u tagi jirnay anagu cid la hadlin iyo ergasha soo sheegto la soo dhaweeyo war mar haddii aad war aan jirin ka soo horeysiinaysaan oo aad annaga waxa weeye war aan jirin naga sheegaysaan sidee baad erga u noqonaysaan sidee baad waxa weeye wixii la idin dhiibana aad run uga sheegaysaan mar haddaa sidaa tiin waad fashilateen iska noqda warkaasna maanta halkaa ku haro beelaha garxajisna waxaan leenahay iyadoo la iga dambeyn doono dee raggii dhaqanka ahaa ee ummaduhu markay islaayaan waxa weeye xaaja qaadka abaati sidaa aad waxa weeye go'aanka fiican u qaadateen ee walaalihiina dhiigooda aad waxa weeye wagli galateen ee aad u leedihiin muxuu ahaa qodobada adag aad u soo saarteen
ودقنكii la arki jiray wey waana raggii uu wixii lidku yaqaanay wey beelaha kalena waxaan leenahay haddii arrinkan raalli ka ahayn sidaa uga hadla assalaamu calaykum raxmaani raxiim bismillahi raxmaani raxiim saxaafadda iyo golahan aanu joognay odayaasha dhaqanka iyo cid kasta oo fiidiyowga daawata waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabnaa hadalku badaysin baa yiri hadalkaygu maanta ma badna warar fara badan oo intaas xor iyo daba maraya oo si dadka jaahwareer u geliyay un baa lagu kalifay kelmada laga yiraahdo koow anaga horta ma diidin nabadda labo ma diidin xabad joojin laakiin wax si sax ah oo toos oo socda ma baanu arag marba hadal meel laga soo duubayo iyo kelmada la warfinayo iyo qaar le terrorism aan la dagaalamaynaay kulli bilaada ku dhari way dhigaysanayeen marka bal qoliyaha waxaan oo la marba hadalkina sax ah oo hadalkinu jaha uu ha qabsado ama xabad ha qabsado ama xabad joojin iyo nabad ha qabsado qoliyaha intaasaan oran lahaa oo bahasha iska sax haddii nin wala soo doono isaga hadlo mid media wax ku soo qor mid cid baan la hadlay mid halka terrorism baan dagaalamayna oo wax la yaab leh warbal si sax tadilaahi ka baqdaan waayahay erganimada dadku waa Soomaali waa la yaqaanaa dhaqanku wuu soo hadla wala wada hadla agay isugu nimaadna waxaynu yeelaa haata ah halkaas boroseskaas waa loo soo maraa qaar iska soo duulo markuu isoo taagay weydila joognaana waa la arki laakiin mid isagoo gurigiisa jooga iska leh hebel baan la hadlay oo halkan aan ka hadlay oo baraan baxaya oo waxyaalaha ku cusub kulli dhaqanka aynu niqiin hadalka odayaasha hore soo ururiyay aad u talax tagi maayo wixii arrin weynoo dambeyn doonaan waayelka garxajis ee sharafta badan ee sida fiican u hadlay waa sidii guurtinimada ahayd ee la yiqiin ee ku saleysnaanaysa dhaqankii Soomaalida aad iyo aad baad u mahadsantihiin cid kasta waxaan u cadaynaynaa xabad joojin iyo nabad baa la diiday cid ku marmarsoon doontay waa been wax u socda iyo wax wada saxan haya midna ma aan arag salaamu calaykum kadib karataab hadalka uu yiri inteedoo dhan waa la qabnaa ana waa ku raacsanahay ismadoo dhan waa hadal uu yiri oo lagu tashaday taasoo waa inta hadalka kale isaga ka jawaabay waxaan la adkaynayaa ta xagga garxajiska go'aankiisa ku saabsan dowladda ama Soomaaliya taariikh bay leedahay iyada oo dowladnimada Soomaaliyeed aan hadalhayn reedab khaatimo meel la yiraahdo yay fadhiisteen nimanka garxajis waxay ku baaqeen Soomaalida soo nabad iyo dowlad gudub waa taariikhdoodii tan maantana sidaa ay u hadleen waa tala aanu isla dhiqin weligayana horaanu idhi tala iyo tayiisa naga dhaxaysa waxa uu laho weyna kuma kala hadno weligayaba iminkana waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa go-aankiina waana ku shaqaynaynaa meelaha kalena dee ciddii garashadaa lehi ha laga arko asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu